iminkana Hargeysa. Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil waxa uu ka mid yahay salaadiinta farakutiriska ah ee ka nool salaadiintii hore ee jamhuuriyadda iskeeda u dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland, isagoo muddo ka badan 50 sanadood hayay mansabka suldaannimada. Suldaan Saleebaan Cali waxa uu uga warramay wariyaha BBC-da Axmed Saciid Cige oo kula kulmay magaalada Hargeysa dhaqankii hore, haybadii iyo brotokoolkii uu lahaa, qofka suldaanka, garaadka, boqorka, ugaaska laga dhigaa iyo waxyaabaha ka reebanaa. 60kii hortii iyo ilaahaasna waxa jooga halgan iyo dagaal lagu haftay iyo hadal wixii yeedhay intaba waanu haynaa haddii loo haraad qabo. bal hadda waaye maantaan suldaan ku weydiinaya waxee bal ii waran marka hore oo bal goorta saldaannimada beeshaadu ay ku cumaamaday inta ka soo wareegay waxay ahayd waxa ka soo wareegay 53 sanadood inta aan u shaasitay kee lagu caleema saaray ma xustaa boorama iyo awbare iyo lagu wada caleema saaray waqtigaas saldanada lagu caleema saaray deegaanada Soomaaliland oo kale intee in leeg ba salaadiin ahayd ama madax dhaqameed ama ugaasi ama garaad inta ugaas ahayd ama garaad ahayd way yareed 10 kama badnaaneen inta Soomaaliland aan ku garanayay waqtiga 10 kama badnayn. bal markaad isbarbar dhigto waqtiga iyo imako ay boqolaal yihiin bal maxaad ka waran saaritaasi ee madax dhaqameedkii salaadiintii iyo boqoradii iyo garaadadii iyo waasidii wala biyo dhaceeyaan ka oran karaa suldaamada waqtigaa joogay suldaamo la maqlo oo arrinkoodu wax tare ahaayeen imiga arladay ka bateen oo waa iska waa magacuun weeye maanta xalla wax manfaco ay leeyihiin ma jiro. waxaan maqli jirnay oo kale madax dhaqameedka suldaanka mamnuuc bay ka ahayd inuu muqaayad wax ka cuno ama inta soo fadhiisto shaah ka cabo. imiga halkan horteena waxa maqaayad baa halka guurtiga shaah ma lagu keenaa baa la yidhi ma yahay biyo ma lagu keenaa baa la yidhi ma yahay sidaa imiga dhigtay ka maqlayaan rigi iyo dibadda waxba kuma baahan. waaba taan ku wareystay dhaqankaas ka war maxaad ku waaninaysaa imika markaa? waxaan ku waanin lahaa in halkiisii uu noqdo suldaanku inuu halkiisii u noqdo. dadkan la iska wada yidhina dee nin la hubsaday oo la baadhay baa markaa hore suldaan laga dhigan jiray oo waxbuu anfici la leeyahay. laakiin ninkan intuu baabuurkiisa fuulo carruurta saaraya ee suldaani dhaha leh ma jiray waagii hore. ka waran waxaan ay ku hadlayaan iyo hadalkan maalin walba ay la soo taagan yihiin markii hore salaadiintiinu sidaad u hadli jirteen waxa lagu yiri hadal bal idin ma ogolayeen waxa guurtidaasi mesela beesho ay go'aamiso ay badbada ku dhawaaqi jirteen oo shirgudoonka lahayd run bay hay sidaas wixii la garan waayo ee soo saar lagu yidhaa iyo wixii reerku keeno labadaba lagu hadli jiray. tani waa dee iska dhaweeyaan dabayshaas codku weey xalla wax macno oo leedahay nimis. su'aasha kale ku diinay waxa weeye salaadiinta hore ama garaadada ama boqorada ama ugaasidu xoolaha loo ogon jiro beeshu ayay saarnayd markaasi damaanad qaadi jirtay inaanu baahan halafteedu soo markaa ma aha in beelaha laftooda ay leeyihiin dhaliish taasina meeshay ka baxdayo waa isla wada fasaqantay. suldaanka cid hadal haysiiyo ugama duwanaa kan kale ugama soconaba dadka imiga jooga ugama socono dadka kale suldaanka iyo ugaaska midna waa ula mid imaka beeshaadu waa beel ballaaran oo boorama ilaa iyo awbare Ethiopia sideebada la xidhiidhaa? si fiican baan ula xidhiidhaa wixii arrimadooda adayga waxa kale se iyaga iska wata wixii adag baan ula xidhiidhaa arrimada kale farahaan ugala baxnay. adiga laftaada malaha qaar baa laga agsameeyo jifa ma jirtaa? waa iska jiraan laakiin waxba isma yeelo isma weyso jibin ya Cige aad ayuu mahadsan yahay. iminkana ciyaarihii xalay waxaa la dheelay kulamo ka tirsan tartanka koobka Carabao.